ducaad da'yar oo hablo ah oo ka mid ah ardayda wax ka barata macadka culumta shareecada islaamka ee Ibn Qayyim ayaa qabtay kulan dacwadeed looga hadlayay fahamka dacwada islaamka. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال kulan dacwadeedkan ayaa ujeedkiisu ahaa sida bulshada loogu baraarujin lahaa waajibka ka saaran faafinta dacwada islaamka loona xambaari lahaa dhaxalkii uu nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uga tagay ummadiisa loona gaarsiin lahaa ummadda inteeda kale ayadoo loo maray asluub xambaarsan cilmi iyo xikmad. kulankan ayaa waxaa lagu dahfuray aayaadka quraanka kariimka qolka Allah subhanahu wa ta'ala waxaana ku dahfurtay Asma Xasan Jaamac. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. intaas ka gadaal deeqa oo kamid ah ardayda daaciyaadka ayaa ka hadashay kulan dacwadeedkan waxa uu ku saabsan yahay iyo wax loogu magac daray. الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون على الأذى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر عباده بالدعوة إلى الخير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد anagoo ah bahda ardayda wax ka barata macadka Ibn Qayyim waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa barnaamij ku saabsan fahamka dacwada islaamka aan ugu magac darnay qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani وسبحان الله وما أنا من المشركين. إفراح oo iyana kamid ah hablaha daaciyaadka ayaa waxay ka hadashay maraaxishii ay soo martay dacwada islaamka iyo sidoo Allah subhanahu wa ta'ala ugu waajibiyay ummadda nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam maadaama dacwada islaamka faafinteedu ay tahay mas'uuliyad uu alle saaray nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii uu dacwadii gutay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummadana uu gaarsiiyay alle uu oofsaday ka gadaal geerid nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alle wuxuu saaray faafinta dacwada iyo diinta nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lagu soo dajiyay ummadiisa alle sareey wuxuu dhahay ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسري وحودا هذين كمد نقدان مؤمنين كوح ددك ugu yeer khayrka oo la jecel yahay fartan wanaaga ka reebto xumaa waxaad mudantiin hadii sifooyinkaas leedinka helo inaad adduuni aakhir ku liibantaan. إفراح ayadoo hadalkeeda sii wadata waxay tilmaamtay qodobada saaran qofka dadka kale diinta xaggeeda ugu yeeraya inuu isaga ka yaqaan dacwada islaamka. waxaa saaran ruux kasta oo muslim ah markuu dadka dacwada islaamka ugu yeerayo inuu garasho u leeyahay wadada uu marayo iyo cid uu dacwada ugu yeerayo iyo isluubta isticmaalayo iyo waajibka ka saaran dacwada islaamka si ay dacwadiisu u noqoto iftiin kala gaaro dhulka oo dhan diinta ilaahayna ku sara marto.
dahawo safo iyo deeqo ayaa iyagana kulanka ka soo jeediyey kelmado ay ugu hadlayeen xukunka dacwada fadligeeda iyo ahmiyadda ay leedahay dadka wanaagga in loogu yeero xumaantana looga digo. haddaba waxaan isweydiinaynaa qodobada laga rabo qofka dadka kale dacwada ugu yeerayo inuu ka yaqaano dacwada. qodobka koowaad maxaa loola jeedaa dacwada islaamka? dacwada islaamka waxaa loola jeedaa in dadka loogu yeero inay raacaan si kore iyo si hooseba diinka uu alle ku soo dejiyey nabigiisa Muxamed sallallahu alayhi wasallam uuna inoo sheegay alle inuusan camal ka aqbalaynin cidii ka leexata diinka islaamka. alla sareeya wuxuu dhahay ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. alla sareeya wuxuu dhahay qofkii ka yeesha waxaan islaamka ahayn diin waa alla ku caabudo alla ka aqbali maayo maalinta aakhirana wuxuu ka mid noqonayaa kuwa khasaaray ee cadaabta alla galaya. qodobka labaad waa maxay xukunka dacwada? xukunka dacwada waa waajib oo Allah saaray dhammaan ummadda uguna yeeray. alla sareeya wuxuu dhahay ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qofkii arka munkar ku suuliye gacantiisa haduusan awoodin ha ku inkiro carabkiisa haduusan awoodin ka naco qalbiga waana mid kugu hooseeya iimaanka. qodobka saddexaad waa maxay fadliga ay leedahay dacwada islaamka? fadliga ay dacwada leedahay waa mid weyn, abaalmarkeeduna waa mid uu weyn yahay. waa wadada lagu liibaano iyo tubta lagu badbaado. qofkii la yimaadana uu helayo ajir badan. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qofkii dadku ugu yeera hanuun wuxuu leeyahay ajirka intii soo raacday yeeridiisa ayadoo labadoodaba ajirka midnaba laga nusqaaminaynin. faafinta dacwada waa shaqada uu alla u dooray khalqigiisa kuwa ugu sharafta badan. alla sareeya wuxuu dhahay قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. kudhe nabiga sharafta badnoo kuwa dacwada ugu yeerayso dacwadeeda tawxiidka waa wadadeeda waxaan dadka ugu yeerayaa inay alle keligii caabudaan anoo cilmi xujo ku kor sugan. afnaan oo ka mid ah ardayda daaciyaadka ayaa tilmaantay sidoo kale arrinka uu alla subxaanahu wa tacaala ugu fadilay ummadda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ummadaha kale. arrinka dacwada ilaahay wuxuu ku kala fadelay ummadihiisa isagoo ka yeelay ummadda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam la imaashaha dacwada ee la timid mid ugu fadliga badan ummadaha. imaamul qurdubi wuxuu dhahay ilaahay wuxuu ka yeelay isfaridda wanaagga iyo iska reebidda xumaanta wax lagu kala saaro mu'miniinta iyo munaafiqiinta. qodobka afraad waxaan isweydiinaynaa waa maxay ahmiyadda ay leedahay dacwada islaamka? haddaysan jiri lahayn dacwada dadka diinta lagu yeero diinta islaamka mausan faafeen dadkana ma aysan garteen alle keligii inay caabudaan ma aysan kala garteen xalaasha iyo xaaraanta iyo xuduudu alle u dejiyey. dadka in lagu yeero dacwada mideeda toosan waxaa ku soo xasilayo diiwaanta adduunyo iyo mideeda aakhiro. naxwo iyo afnaan oo ka mid ah ardayda daaciyaadka ayaa ka hadlay sidoo kale qaar ka mid ah ujeedooyinka dadka wanaagga loo farayo xumaantana looga reebayo. qodobka shanaad waa maxay ujeedo dadka loogu yeerayo diinta islaamka? ujeedooyinka dadka loogu yeerayo way fara badan yihiin. waxaa ka mid ah in dadka laga saaro mugdiga gaalnimada loo saaro iftiinka islaamka lagu hanuuniyo wadada xaqa si loogu badbaadiyo carada alle iyo naartiisa. saxaabiga lagu magacaabo Ribciyi ibn Abi Caamir Allah ka raali noqdo markii uu saxaabiga jaliilka ah Sacd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu u diray hogaamiyey Furus ee Rustum wuxuu weydiiyey maxaa noogu timideen wuxuu ugu jawaabay inaan dad ka saaran inay iscaabudaan una saarno inay rabbigooda caabudaan inaan dad ka saaran dulmiga diimaha una saarno cadaaladda islaamka. waxaa ka mid ah sidoo kale ujeedooyinka dacwada in dadka laga saaro dulmiga jahliga loona saaro iftiinka cilmiga in dadka laga saaro mugdiga macsiyada loona saaro iftiinka daacada
in dadka laga saaro adeecidda shaydaanka loona saaro adeecidda alle iyo rasuulkiisa. Alle sareeye wuxuu dhahay الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Alle sareeye wuxuu dhahay Alle waa mid weli ah una gargaaro khayrkana waafajiya kuwa isaga rumeeyay. Wuxuu ka saarayaa mugdiga gaalnimada iyo jahliga, wuxuuna u saarayaa iftiinka iimaanka iyo cilmiga. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada in la helo ummad wanaagsan oo alle caabuda dadka bara diinka alle. Alle sareeye wuxuu dhahay لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alle sareeye wuxuu dhahay Alle wuu idin nimeeceeyay markuu idin soo diray rasuul idinku aqrinaya quraanka, idinka daahirinaya shirkiga iyo akhlaaqda xun, idin baraya quraanka iyo sunnada. waxaad ahaydeen intaan la soo didin kuwa baadi cad ku dul sugan. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada helida muslim wanaagsan. nabiga wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaan ku dhaaranayaa alle inuu ilaah hal qof sababka ku hanuun waxay ka khayr badan tahay in loo siiyo dhammaan wax hanti ah ee adduunyada yaalo. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada in xujada lagu ooga dadka alle ku gaaloobay diiday cibaadadiisa. Alle sareeye wuxuu dhahay rusulan mubashiriina wamunziriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul wakaana allahu casiizan xakiima. alle sareeye wuxuu dhahay waxaan usoo dirnay ummadda rasul ugu bishaareynaysa ciddii alla rumaysa janno uguna digaysa ciddii alla beenisa naar. sidaas waxaan u sameynay saysan dadka ugu sugnaan waxay xujaystaan kuna cudur daartaan maalinta qiyaamo. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada in dhulka lagu camiro khayr iyo camal wanaagsan. Alle sareeye wuxuu dhahay يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. alle sareeye wuxuu dhahay kuwa alla rumeeyo ku camal fala wuxuu alle idin jideeyay urukuuca inuu sujuuda salaadiina dhexdeeda keligii wanaaga sameeya. waxaad mudantihiin haddaad sidaas sameydaan inaad adduun iyo aakhiro ku liibaantaan. waxaa ka mid ah ujeedooyinka dacwada in la iska reebo dhulka macsida Alle in lagu fasaadiyo. dhammaan Alle rususha uu soo diray qoomkooda markay ugu digayeen shirkiga waxay fareen inay dhulka ka daayaan fasaadka iyo xadgudubka, waxayna ka reebeen ummadahooda dhulka in lagu fasaadiyo macsida Alle. midaa waxay dhammaan dadka ka badbaadinaysaa cuquubadu Alle ugu soo dedejin lahaa adduunyada. Alle sareeye wuxuu dhahay وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. alle sareeye wuxuu dhahay rasuulka sharafta badan oo ma ahan rabbigaaga mid halaagayo magaalooyinka dulmi ay sameeyeen darteeda, ayadoo magaalka dad ku nool ay islaaxinayaan, dadka wanaaga farayaan, xumahana reebayaan. dhulka fasaadin waxaa u ah in lagu dhex sameeyo wuxuu alla reebay. allana addoommadiisa wuxuu ku waaniyey inay wanaag ku dhex sameeyaan dhulka dhexdiisa kana daayaan xumaha. alle sareeye wuxuu dhahay إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. alle sareeye wuxuu dhahay alle wuxuu idin farayaa cadaaladda iyo isxaan samaynta iyo in qaraabada wax la siiyo, wuxuuna idinka reebayaa xumaha macsiyada iyo gardarrada. waxaad mudantihiin inaad waanada qaadataan, fartoontaan waxa la idin faray, ka hartaan waxa la idinka reebay. allah naga yeelo kuwa wanaaga isfara xumaana iska reeba, kana shaqeeya islaaxinta dhulka, uusan nagu darin kuwa dadka iyo dunyada fasaadiyo. gabagabadii kulan dacwadeedkan ayaa waxaa lagu soo qatimay aayaadka qur-aanka kariimka qowlka allah subxaanahu wa tacaala أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.